السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ولا لها. waxaan Ramadaankan ku tala galnay barnaamijka weydiiyo culimada su'aal maalintiiba hal su'aal in soo gudbin doono iyo jawaabteeda. su'aasha koowaad iyo jawaabteeda shalay soo gudbinay maanta koowaad Ramadaanka soo gudbinay. su'aasha labaad ayaa maanta soo gudbinaynaa insha Allah taala iyo maalinta labaad Ramadaanka. marka la socda kana faa'iideysta الشيخ محمد إيميكا تلفون كان أوريجيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي حقي جوكتا مقعاقة عبد الرزاق بري ويدين الله صار لي مقالة بربرة مقال حبيت بربرة. عبد الرزاق ما شاء الله رمضان الكريم صوت الشيخ محمد محا سؤال ويدينيسا رمضان كريم دمان مدة الإسلام كميرة جوكتو لبس سؤال بدنا ويدين لها. سؤال شكوى ذو حويان بدنك واحد عظم هاي إن ضد قاركود أنا هاي وقتها هاي سحور طلع أنا سحورنا ويكتجان تعبر يضرب هاي نقول الساعات سحور تكتجية بس سؤال شكوى هي dad suxuurta ka tagayo hurdada sii jeclaysanaya waa su'aasha koowaad haye su'aasha sii badan hurdada iska jeclaysanaya su'aasha labaadna waxay tahay dadka loo baneeyay inay maxay ahayd ama qofka qallo oo kale Ramadaantii hore kale laga leeyahay bad qallihiina waxay ugu soo gaadhay iyadoo aan weli aanu qallaynin oo aanu maxay waajibkiisa ama laba cisho ama saddex cisho ka tagtay Ramadaantii labaad isagana maxaa sidee buu qallaha isaga ama waa maxay xubkiisu Sheekh Maxamed waa fahamtay umaleynaya laba su'aal inaad labada su'aal waa fahmay su'aasha koobaad oo ah qofka dadka suxuurta ka taga suxuurta horta waa sunno waa wax aad iyo aad u fadli badan oo suxuurtu qof mawlid suxuurtu waa sunno nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu amray inaan suxuurano xadiis saxiix oo nabigu wuxuu ku leeyahay tasaxaru fa inna fi as-sahuri baraka suxuurta baraka ayaa ku jirta suxuurtu qofka waxay siinaysaa awood iyo energy maalinkii oo dhan cibaadadii ayuu u kaalmaysanayaa maadaama uu afurkii ama cashadii ay ugu dambayso waqti dheer waxaa la diidayaa in uu waqtigaas dheer gaajoodo maalinkii soonkii uu qofkii kari waayo ama uu ku dhibtoodo qofkii nashaad iyo farxad ayuu maalinkii helaya marka uu suxuurto laakiin haddana waa sunno oo waajib maahan haddii qofka uu ka tago wax dambiya oo uu ku dhacayo haba yaraatee ma jirto haddii uusan dhibsanayno suxuurtii yani sunnada nebiga qof dhibsanayo uusan ahayn sida kale ama si uga tagay ama uu go'aansadaba inuusan suxuuran soonkiisi waa u jira qofka waana saxiix ajarkaas yar ayaa dhaafay maahane ajarkaas suxuurta dhaafay laakiin soonkiisi waa saxiix qofka